يا دوم ما سنتي بهذا ورباهنتا ونانتي waxaanu maanta caaw halkaan keenay dad waxaan halkaan keenay xaruntan dad tiradooda dheeraan 1500 oo qoys waxaan kala qaybinay xaruntan oo xarunta weynada NGO-da iyo xaruntii barakacayaasha loogu talagalay ee Yemeniyiinta ay deganaayeen runtii ujeedada aan laga leeyahay maadaama kaamamkoodii ay biyo badan ay saameeyeen sida maanta ay ku aragnay aan lagu hadlayn karin si alaaligeed baan u soo rarnay NGO maxalliga oo IDPS la dhaho ayaa ka qayb qaatay in raashinka iyo dadka iyo gogashii la siin lahaa ganacsada diiwaan dheera loo magacaabo ayaa isaguna dadka cuntadooda ka qayb qaatay waxaan rajaynayaa dadka kale oo reer Boosaaso in walaalahooda kale oo diban oo kaamamka degan inaynu caawino iyo walaalaheena kale oo reer Boosaasoodka oo danyarta oo guryaha iyagana biyaha u soo galeen oo maanta waxay ka saaraysaa waxaa jira kaamam badan oo wali laga soo cabanayo sida kaam Shabeelle la dhaho sida kaam la dhaho Suweyte ku dhex yaala xaafadda Suweyte ku dhex yaala waxaa jira guryo badan ee roobabku ay waxyeeleeyeen qaarkood ku yaaleen xaafadda Rafiya Raaxo qaarkood ku yaaleen xaafadda aaga Panorama qaarna ku yaaleen magaalada dhexdeeda waxaa jira goobo ganacsi oo roobabku waxyeeleen waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in taas dadkaas oo dhan gurmad u baahan yihiin cid alaal gurmad u baahan inaan caawino kana sugi meeno ama ahmiyadda saarina in meesha sheeye iyo hay'adaha caalamiga in marka ku qeylin beenay in dadkeena maxalliga ay is caawin aad baa